kulankan oo uu soo qaban qaabiyay ugaaska guud ee beesha Cawliyahan ugaas Xuseen ugaas Qorane oo lagu qabtay magaalada Muqdisho kulankan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan waxgaradka ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka taasoo uu ugaasku baaq ugu dirayay in xildhibaanada ka soo gala ee beeshan loo bedelayo gobolka Gado taasoo uu sheegay in ayna marnaba xildhibaanadaasi ku tartami doonin magaalada Kismaayo waxa uu arintaasi ka soo saaray war-saxaafadeed aniga iga soo baxday yaan rabaa inaan idin akhriyo hadalka hortii iga raali ahaado jamhuuriyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ugaas Xuseen ugaas Maxamuud ugaas Qorane ugaaska beesha Cawliyahan ku wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland og guddiga isku dhafka khilaafka ee doorashooyinka og guddiga isku dhafka doorashooyinka ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada og ra'iisul wasaaraha xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya og gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ujeedo kursiga deegaan doorashadiisu tahay Bu'aale ee magaalada madaxda dawlad goboleedka Jubbaland magacaygu waa ugaas Xuseen ugaas Maxamuud ugaas Qorane ugaaska beesha Cawliyahan waxaan kamid ahay salaadiinta soo dhistay baarlamaankii 9aad iyo kii 10aad ee dawladda federaalka Soomaaliya ka koobnaa 135 duub ee Soomaaliya sida la wada ogyahay ama labada socotaan kursiga golaha shacabka ee beesha Cawliyahan ee dawlad goboleedka Jubbaland ee lambarkiisu yahay ewer 82 deegaan doorashadiisuna tahay magaalada madaxda Jubbaland ee Bu'aale intii ay jirtay dawlad goboleedka Jubbaland magaalada Bu'aale iyo dhammaan gobolka Jubbada Dhexe waxaa gacanta ku haya nabadiidka al-shabaab sidaa darteed suuragal ma aha in kursiga lagu qabto doorasho sida awgeed waa in doorashada kursiga beesha la geeyaa meel ay si daahfuran oo aan la cabsi gali karin ama la faragelin karin ooga dhici karto maadaama Bu'aale ayna doorasho ka dhici karin goobta lagu qaban karo doorashada kursiga lambarkiisu yahay ewer 8 waa in taladeedu lahaata beesha Cawliyahan oo aan aniga ugaas u ahay dhanka kale xildhibaanad Xamse Sheekh Xuseen oo ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in ayna marnaba aqbalaynin in xildhibaanada ay iyadu kamid tahay ay doorasho ka galaan magaalada Kismaayo taasoo ay sheegtay in cadaalad darro ay halkaasi ka dhici doonto taasoo cabsi weyn ay ka qabaan waxaana ay ku baaqday in kuraastooda loo wareejiyo gobolka Gado annagu deegaan doorashadayda aniga ahaan aan ka soo jeedo kursiga aan ku fadhiyo waa Jubbada Dhexe waxa laga xukumaa asaga magaalo madaxdii ah gobolka Jubbada Dhexe waa magaalo madax hadii magaalo madaxdii kuraasteedii uu dalkii uusan dal madax banaan oo doorasho lagu gali karo uusan ahayn wuxuu ku galayaa meeshii loo arka inuu saaf ku yahay kursigaas saafkiisa ama kuraasta ka soo jeedo maxaan ku dhahay Jubbada Dhexe waxa uu gobolka Gado laba gobol baa loo qaybiyay raali baanu ka nahay waxaan ku dhahay doorasho dadban qof iyo cod haday dood ma imaateen doorasho dadban baa la galay waxa la rabaa xasilooni tii horeete ee konton iyo koow ama suqmaasuqa aragtay dhibaatooyinkii naga qabsaday inkastoo aad ugu mahad celinayo beesha ani aan ka soo jeedo haddana dhibaatooyin badan oo inta nagu filan ah kala kulanay sidaa daraadeed waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha Jubbaland Maxamed Islaam waxaan ku leeyahay caburinta naga jooji hal nooma qaadan kartid aniga kursiga waxaan ku leeyahay saafka waxay ku tahay kuraasta Jubbada Dhexe inaan Gado ku galo kuwa Gado la geeyna hal isku daro kuraasta waxa tiri mareexaan oo dhan ha tagaa tiri Gado maxaad xukuntaa marka annagana waxa tiri absami ii soo wareejiya taama kugu qurxan tahay su'aasha waa maya 100 mareexaan oo kula shaqeysa oo deegaankii kula waa jirtee isku dar anigu badoonahay Kismaayo inaan ku galo saa aniga deegaan ahaan absama waa tan gobolka uu ku maqan yahay absama waa nahay qabiil ahaan baan u nahay laakiin
kursiga kuma aha kursiga waa ergo waxaan ku dhahay dhibaato haysato kuraasta lama dhihi kara waxay ku soo galahayaan waxaan rabnaa jecelahay in loo geeyo seefkanaga ku jiro runtii seefkayga ku jiro way noo wanaagsan tahay ugaaskiisa waxaan nagala dagaalamaysaa dhaqankii waxaan nagala dagaalamaysaa siyaasadii waxaan nagala dagaalamaysaa noloshanadii waxaan nagala dagaalamaysaa markii la hadlan absamo weeye dadka absamo ma boqol absamo baad meesha geysay cid alla cid ku ogol xagaa tagto cid kale inta tagto saasaad madaxweyne ku noqonaysaa laakiin absamaan kaxayn mareexaan xagaan geyn kaban gasaar guud u dhashay kan oo gabaaweyn buu dhashay ka dirbu u dhashay dadka aan qaybin dhammaan waxgaradkii ka soo jeeday deegaanada jubbooyinka ayaa si adag uga hadlay arrintaas waxayna isku raaceen dhammaan salaadiinta siyaasiyiinta aqoonyahanka gobolka Gado maadaama magaalada madaxda Puntland ee Bu'aale ay haystaan al-shabaab ugaas Cabdullaahi ugaas Barrow ugaas Cali ugaaska beesha garjanta gardheera Soomaali waxaan u mahadcelinayaa ugashan sharafta leh dadkii noo dhigay uu u horeeyo ugaaska beesha Cawliyahan iyo intii ku taageertay ilaaha mahad iska leh waa u mahadcelinayaa inkastoo aan mid yar raacinayo waa daahnay sheekada aad sheegtay ugaas Xuseenow waa daahday maanta haddana waqtigeeda waa inay socoto waay anigu waxaan ka hadlayaa kursiga 108 intiina maqlad reer Jubbaland 108 ugaas Xuseen hadda wuxuu ka hadlayaa eber 82 anna 108 waay Jubbaland shaqo kuma lihi kismaayo shaqo kuma lihi deegaan dad xildhibaan iiga noqon karo aan ku dooran karo kuma jiraan kursigayga waa Gado degmada waxaan ahay suldaankii beesha Bimal Afaaf ama Bimal Jareer gobolka Jubbada Dhexna waa degnaa Jubbada Hoosna waa degnaa Jubbada Dhexe waxaan ka degnaa Kaskey iyo Beledweyne ilaa iyo Haraaw labada gedi hooga labadiisa dhinac aan degnaa runtii waxaan taageersanahay kursigaani oo gobolka Gedi la geenayo haddaan aniga ahay suldaankii beesha Bimal Afaaf ama Bimal Jareer kursigayna waa in la geeyaa ama aan geysana gobolka Gedo Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV Muqdisho